kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada page-ka YouTube-ka caasimada channel oo xilidan oo kale warar iyo warbixino kala duwan iyo barnaamijyo aad uga barateen iminkana waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijka xogaal qodobo dhowr barnaamijkeedu kugu soo gudbinayna waxa kamid ah madaxweyne Geelle oo ka hadlay saameynta dekedaha Eritrea Soomaaliya ay ku yeelan karaan dekeda Djibouti waxaan kaloo barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa Maxaa Cumar Cabdirashiid ka reebay doorashada madaxtinimada ee Puntland xog arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamana markan waxaan ka cabsi qabaa in natiijo al-shabaab ka daran ay Soomaaliya ka dhalato iyo wargeys shaaciyay dagaalka Israa'iil qorsheynayso in ay ku qaado dal Carabeed qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka xogaal intaynu ku guda jirnay u diyaar garooba barnaamijka taariikhdan waxay ku beegan tahay 25 bisha December sanadku waa 2018 aynu guda galno barnaamijkii oo faahfaahsan iyo warbixinta ugu horeysay madaxweynaha dowlada Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay isbedelka dhaqaalaha ee geeska Afrika iyo maalgashi lagu sameynayo dekedaha Soomaaliya iyo Eritrea mar uu ka hadlayo horumarinta dekedaha Soomaaliya iyo Eritrea ayuu sheegay in dowladda Djibouti ay weligeed taageersaneed inay hesho dekedo tartan la gasha suuqyo wanaagsan looga helo bariga Afrika madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in tartanka dhinaca dekedaha uusan saameyn badan ku lahayn dekeda dalka Djibouti isla markaasina uu wanaagsan yahay gobolka dowladda uu madaxweynaha ka yahay ayuu sheegay inay soo dhaweynayso tartanka maalgashiga lagu sameynayo dalalka dariska la taasi oo dhalinaysa in horumar wanaagsan la gaaro tartanka dalalka geeska Afrika ay ugu jiraan suuqa weyn Ethiopia ayuu sheegay in Djibouti ay halkeedii hore ay ka taagan tahay tartanka ayna soo dhaweynayso ugu dambeyn waxa uu ka hadlay madaxweyne Geelle dib u heshiisiinta Eritrea iyo Djibouti isagoo sheegay in dhawaan ay kulmi doonaan wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal kana wada hadli doonaan khilaafka u dhaxeeya labada dowladood waa Djibouti iyo Eritrea waa tahay daawadayaal qaybihii hore ee barnaamijka xogaal ayaynu ku guda jirnaaye iminkana waxaynu eegaynaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah xubnaha mucaaradka ayaa walaac xoogan waxa uu ka muujinayaa xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya ay haatan ku sugan tahay iyo halista ka imaan karta Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu sheegay in halis ka daran al-shabaab ay u muuqanayso in ay ku soo socoto Soomaaliya isagoo tusaale u soo qaatay qaabkii al-shabaab ay ku dhasheen kadib faragelintii Itoobiya 2006 sanadkii 2006 ayuu sheegay in dowladda Mareykanku ay taageertay dowladda Itoobiya waxa uu sheegay in culayskii xilligaasi jiray ay ka dhasheen al-shabaab laakiin haddana waxa u muuqata halis ka daran faragelinta Itoobiya ay Soomaaliya ku sameysay sanadkii 2006 dowladda Mareykanka ayaa gadaal ka taagneyd waxa la wada og yahay oo ka dhashay al-shabaab san sidii u eg ayaa ii muuqata markan waxaan ka cabsi qabaa in natiijo al-shabaab ka daran ay ka dhalato ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur khatar badan ayaa haatan muuqata ayaa dagaalka u dhaxeeya al-shabaab iyo kooxda Daacish oo haatan ka bilowday gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Gedo Jubbooyinka iyo qaybo kamid ah gobolka bari ee Puntland Soomaaliya waa tahay daawadayaal wali waxaad la socotaan page-ka YouTube-ka caasimada channel gaar ahaan barnaamijka xogaal iyadoo barnaamijyo kale ay noo soo socdaan aynu eegno gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa mar kale shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye degme xilli dalka uu ka maqan yahay gudoomiye gobolka Banaadir Engineer Riso Axmed Maxamed Xasan ayaa laga joojiyay shaqada gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana ka joojiyay gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir sababta ugu weyn ee gudoomiyaha degmada Yaaqshiid shaqada looga joojiyay ayaa lagu sheegay inay tahay musuqmaasuq iyo isdabamarin dhaqaale lagu arkay sida xogta aynu ku helayno waxa markii labaad uu gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur uu shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye degme isaga oo kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa horey sidaan oo kale shaqo joojin ugu sameeyay Cumar Shariif Jeeg oo ahaa gudoomiye degmada Xarumeerweyne markii laga yimaado eedaha musuqmaasuq ee xubnaha gobolka Banaadir lagu eedeynayo ma jirto ilaa haatan shakhsi ka tirsan maamulka gobolka oo maxkamad loo soo taagay in uu ku dhaqaaqay falxatooya ama musuqmaasuq wax isdabamarin uu sameeyay waa tahay akhyaarta nagala socota page-ka YouTube-ka ee caasimada channel wali waxaad la socotaan barnaamijka xogaal qaybihiisii dambana waynu ku sii dhownahay
haddii iminkana aynu eegno waxaa aad loo hadalhayaa sanadkan ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid cali sharmaharke inuu isku soo taagi doono doorashada madaxweynaha Puntland. Cumar oo ah senator ka mid ah aqalka sare ayaa ku jira siyaasiyiinta sida weyn u dhalisan dowladda gadwadeenka ay ka yihiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre. waxaa aad loo saadaalinayay in sanadkan garowe loolanka ka socda uu ka qayb gali doono maadaama uu ku fashilmay doorashadii 2007 lagu doortay madaxweyne farmaajo. halkaasi ayaa la sheegay inuu saldhigan doono si awoodiisa siyaasadeed uu ku saameyn karo fil Soomaaliya uu yeesho. Cumar Cabdirashiid ayaa la wada ogyahay inuu gacan saar weyn la leeyahay dowlada Imaaraadka oo lagu tilmaamo in uu yahay dilaalkooda Soomaaliya ee Geeska Afrika. maxaa ka reebay doorashada? sida ay caasimada Janal xog hoose ku helayso Cumar Cabdirashiid iyo Imaaraadka ayaa shir dhawaan ay ku yeesheen magaalada Dubai waxaa lagu kala dooransiiyay laba midkood kow hal lagu taageero doorashada Puntland labo amaba doorashada 2021 ee Soomaaliya. ila wareedyo la hadlay warbaahintana waxay xaqiijiyeen in Cumar Cabdirashiid uu doortay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inay dhacdo 2021 booska Puntland loo daayay Cabdiweli Gaas iyo waliba Siciid Dani kii guuleysta. haddaba siyaasiyiinta ugu cadcad qorshaha koobaad iyo kan labaad oo ah Imaaraadka ee Puntland waa Gaas ama Siciid Dani. ma ahan in taageerada Imaaraadka ay wax tari doonto Cumar Cabdirashiid laakiin waxaa jira in malaayiin dollar ay ku bixiyeen sanadkii 2017 waxana ay u tari weysay isla markaasina xilka madaxtinimada ee Soomaaliya uu ku guuleystay madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. si kastaba haatee iminka ayaa waxaa Puntland ka bilowday loolanka dhinaca doorashooyinka u dhaxeeya siyaasiyiin badan oo markaas ku qulqulaya gudaha magaalada Garowe oo musharaxiina kuwaasi oo badankooda cabasho ka muujinaya madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. haddaba 8 bisha January 2019 oo ay ka harsan tahay 12 bari ayaa la filayaa in magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ee Puntland ay ku loolamayaan musharaxiin badan oo ay ugu cadcad yihiin madaxweyne Gaas, Siciid Dani iyo waliba Jabiye oo isagu lagu xanto in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay garab siinayso iyo waliba Faarax Cali Shire oo isna ka mid ahaa madaxdii hore oo la soo shaqeeyay Puntland iminkana la sheegay inuu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad doorashada madaxtinimada ee Puntland. waatay daawil waxaan soo karnaa qodobka ugu dambeeyay barnaamijka xogaal aynu ku soo gabagabayn lahayn waana wargeys shaaciye dagaal Israa'iil ay qorsheynayso inay ku qaado dal Carbeed. wargeyska Nizavizimiya Gazette ee ka soo baxa dalka Raashka ayaa shaaca ka qaadan Israa'iil ay qorsheynayso dagaal buuxda ay ku qaado Syria kadib markii ciidamada Mareykanka ay ka baxeen dalkaasi. wargeyska ayaa sheegaya in go'aanka uu madaxweyne Trump ciidamadiisa uga saarayo Syria ay ku khasabtay Israa'iil in ay wajahdo joogitaanka Iiraan ee dalkaasi. wargeyska ayaa ka soo xigtay wasiirka hore ee gaashaandhigga Israa'iil isagoo leh bixitaanka ciidamada Mareykanka waxay sare u qaadaysaa suurtagalnimada dagaal baaxad weyn oo ka dhaca waqooyiga haddii ay noqon lahayd Lebanon ama Syria. waxa uu sheegay in ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ay sare u qaadi doonto niyadda madaxweyne Bashar al-Assad iyo xulafadiisa Iiraan iyo kooxda Xisbullah. wargeyska ka soo baxa dalka Raashka ayaa waxa uu soo xigtay khabiir dhinaca military oo Raashiyaan ah oo markaas lagu magacaabo Yuri Lemin ayaa waxa uu yiri hadalka wasiirka gaashaandhigga Iiraan kama soo qaadi karto mid la iska yiri. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 19 bishan si lama filaan ah ugu dhawaaqay go'aanka ciidamada Mareykanka uga baxayaan dalka Suuriya. aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go'aankan iyadoo aan laga guulgaarin kooxda Daesh ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya. gudahan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xogaal oo si toos ah uga socoteen page-ka YouTube-ka ee caasimada Janal. fadlan haddii aad ku cusub tahay ku soo biir page-keena oo subscribe saar si wararkeena, barnaamijyadeena iyo warbixinadeena gaarka ee maalinlaha ah aad ula socotaan insha Allah.